بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن هبه wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo kugu soo gudbin doono dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida iyo waxyaabaha kale ee ka cusub habeennimadan qodobada aan kugu hayna barnaamijka caawana waxaa ka mid ah hal sabab awgeed Netanyahu oo diyaarinaya tallaabooyin lagu hagabdaameynayo nidaamka kacaanka ee Iiraan kadib mowqifka isbedelaya ee Mareykanka waxaynu ka ognahay daba qorshayaasha ilaa iyo hadda digaarka ah sidee go'aanada Washington iyo rabitaanka Trump ee ku saabsan hakinta dagaalka u yareeyeen doorka Israa'iil maxayse yihiin dalabaadka Netanyahu u diray hay-adaha ammaanka Israa'iil oo xasaasi ah ayaynu idinkaga haynaa Israa'iil oo laga yaabo in dagaal iskeeda ay ku qaado Iiraan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa dagaalka Ukraine oo galay marxalad adag iyadoo ay sii xoogeysanayaan weerarada Ruushka ee ka dhanka ah Kiev haddaba dagaalka u dhexeeya dhinacyadan ma waxa uu soo gaaray heerkii ugu xasaasisanaa ee lagu kala bixi lahaa waxay tahay taageerada reer galbeedka ee maqnaanteedu go'aamin karto jihada dagaalkan iyo halka uu ku dhammaan doono waxaase khubarada ka tiri qorshaha Ukraine ay ku doonaysa inay ruqsad ugu hesho soo saarista gantaalada difaaca hawada ee Patriot-ka in ku saabsan xaaladda sii cakirmaysa ee Ukraine iyo khatarta istiraatiijiyadda cusub ee Ruushka ayaad caawa kaga bogan doontaan barnaamijka waxaan kaloon ku eegaynaa 81 sano guurida kasoo wareegatay markii Mareykanku hubka nukliyeerka ah ku garaacay magaalooyinka Japan oo la xusayo maanta dalkaasi laga xusayaa sanad guuradaasi iyadoo weli ay taagan tahay cabsida ah in mar kale hubkaasi la isku adeegsado xilli ay colaado ka aloolsan yihiin qaybo dunida ka mid ah barnaamijka waxaan ku eegi doonaa sida ay u dhacday munaasabadda xuskaasi ee dalkaasi iyo sidoo kale baaqa Japan ay u dirtay dunida dhammaan macluumaadkaasi oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena caawa ee maxaa cusub soo dhawaada markale saaxiibayaal habeen wanaagsan aynu warbixinta ugu horeysay barnaamijka caawa ku bilownay dunida ayaa mar kale waxay halis ugu jirtaa in hubka nukliyeerka ah ugu casrisan la isku adeegsado kadib 81 sano oo laga joogo markii Mareykanka hubka nukliyeerka uu ku garaacay magaalooyinka Japan xilliga dagaalka labaad ee adduunka iyadoo weli cabsitaa la midana ay dib u soo laba kacalaysay dhawaanahan magaalada Nagasaki ayaa xadii maanta ahayd waxay xustay 81 guuradii kasoo wareegtay markii Mareykanku bab atoomig ah oo ku tuuray magaaladaasi iyadoo ay jirto dadaal lagu doonayo in dib loogu furo dooda ku saabsan hubka nukliyeerka taasi oo caqabad ku ah mowqifka nabadoonka ah ee Japan ay muddada dheer ku dhaqmaysay hubka nukliyeerku ma aha shar lama huraan ah balse waa mid shar gabi ahaanba mana wada noolaan karo bini'aadamka iyo isaga ayuu yiri duqa magaalada Nagasaki Jiro Suzuki isagoo aqrinaya bayaanka nabadda intii lagu jiray munaasabadda xusuusta sanadlaha ah ee weerarka lagu qaaday magaalada ku taala koonfurta galbeed ee waddanka Japan Ra'iisul Wasaaraha Japan Fumio Kishida ayaa ku celisay in fariintii ay sheegtay Khamiistii hore intii lagu jiray xuskii Hiroshima taasi oo in Japan ay sii wado ilaalinta saddexdeeda mabda ee ka hortagga hubka nukliyeerka hal daqiiqo oo aamusnaan ah ayaa la qaatay markii saacadu ay ahayd 12 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi xilligaasi oo qalabkii plutoniumka ahaa loogu magacdaray Fatmanka kaasi oo soo tuuray ama kamid ahaa qalabkii ay soo tuurtay diyaaradda duqeynta ee Mareykanka ay ku qaraxdeen magaalada Nagasaki xilligaasi xuskan ayaa kusoo beegmaya iyadoo colaadda bariga dhexe ee dagaalka u dhexeeya Ruushka ay sii ruxayaan xasiloonida dunida Suzuki ayaa uga digay dowladaha leh hubka nukliyeerka ama haysta iyo dalalka ku tiirsan cabsigelinta nukliyeerka khatarta sii kordhaysa dagaal lagu isticmaalo hubka nukliyeerka oo dunida mar kale ka dhaca isagoo ku tilmaamay in weli ay jiraan in ka badan 12,000 oo madaxyada nukliyeerka ah oo dunida dul saaran waxa uu walaac ka muujiyay colaadaha ka socda bariga dhexe iyo Ukraine ama bariga qaaradda Yurub kuwaas oo ay ku lug leeyihiin quwadaha nukliyeerka ku hubeysan ee Ruushka iyo Mareykanka Kiyevki ayaa waxay sheegtay in iyadoo ay ka go'an tahay in Nagasaki ay noqoto meeshii ugu dambeysay ee la kulanta weerarka nukliyeerka isla markaana Japan ay leedahay waajib gaar ah maadaama ay tahay dalka kaliya ee soo maray argagaxa iyo dhibaatada burburka nukliyeerka xilligii dagaal ay Japan horumarin doonto dadaallo xaqiiqo ku dhisan oo wax ku ool ah si loo xaqiijiyo adduun ka hor ah hubka noocani ah oo la isku adeegsado
muhiimadda ay leedahay in dunida oo dhan laga hirgeliyo faham sax ah oo ku saabsan xaqlaqooyinka dhabta ah ee duqeymaha atomikada la isku adeegsada ayaa sii kordhaya ayay intaasi sii raacisay. Xuskan sanadkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayaan doodaha ku saabsan in dib loo eego 3 damanda ee nukliyeerka ee wadanka Jabaan ee muddada dheer ku dhaqmayay, kuwaasi oo aynaysan soo saarin haysan amaba aysan ogolaan in hub nukliyeer ah la soo geliyo dalkeeda. Bishii hore wasiirka difaaca ee Jabaan Shinjiro Koizumi ayaa sheegay in Tokyo ay u baahan tahay dood ku saabsan hubka nukliyeerka xilli qaar ka mid ah dalalka Yurub ay doonayaan inay xoojiyaan cabsigelintooda hubka nukliyeerka. Duqeyntii hubkan ee lagu qaaday Hiroshima 6 bishii Agoosto 1945 xilligii dagaalkii labaad ee adduunka ayaana waxay sababtay sida la qiyaasay 140,000 oo qof dhammaadkii sanadkaasi inay dhintaan, halka banka atomikada isna lagu tuuray magaalada Nagasaki 3 maalmood kadib lagu dilay dad lagu qiyaasay ama dhan 74,000 oo qof. Jabaan ayaana waxay isdhiibtay markaasi 15 bishii Agoosto ee sanadii 1945 taasi oo soo afjartay dagaalka adduunka ee xilligaasi. Waa hagaag markan aynu u weecanno warbixin ku saabsan dagaalka bariga ka aloosan bariga qaaradda Yurub ee u dhexeeya Ruushka iyo waliba Ukraine. Dagaalkaasi oo marxalado cusub cagaha la sii gelaya iyadoo su'aalaha ku saabsan mustaqbalka sii socoshada dagaalka Ukraine ay yihiin kuwo sii kordhaya xilli ay xoogeysanayaan weerarada Ruushka uu ku qaadayo Kiev, islamarkaana ay hoos u dhacayaan heerarka lagu soo rido loogana hortegi karo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Moscow ku soo weerarto. Indhuhu waxay sidoo kale ku jeedaan suurtagalnimada Kiev inay hesho ruqsad ay ku soo saarto gantaalada Mareykanka ee difaaca hawada ee Patriot-ka lagu magacaabo. Tallaabadaasi oo falanqeeyaha military ka tirsan King's College London Marina Merone ay aaminsan tahay inaysan noqon doonin xal degdeg ah oo wax ku ool ah oo lagu xaqiijin karo dhibaatada sii xumaanaysa ee ka jirta Ukraine. falanqeeyahan ayaa waxay Al Jazeera u sheegtay in dadaalada sii kordhaya ee ku saabsan Ukraine inay soo saarto gantaalada Patriot-ka qaybo ka mid ah ay kusoo beegmeen xilli hoos u dhac weyn oo ku yimid heerka lagu soo ridayo gantaalada iyo diyaaradaha weerarada ee Ruushka ay kusoo qaadaan weerarada Ukraine. kadib toddobaadyo ay mas-uuliyiinta Ukraine xaqiijiyeen inay ku guuleysteen inay soo ridaan inta badan bartilmaameedyadii cirka ah ama gantaaladii uu soo tuuray Ruushka. waxayna isweydiisay in hoos u dhacani uu ka turjumayo yaraanshiyo dhab ah oo ku yimid kaydka gantaalada ka hortaga kuwa kale ee difaaca hawada loo yaqaano, mise inuu yahay fariin siyaasadeed oo looga gol leeyahay in xulafada reer galbeedka lagu qanciyo laguna qanciyo baahida loo qabo in la dedejiyo hubka loo dirayo Kiev, islamarkaana loo ogolaado in gantaaladaasi ay soo saarto Kiev. Siinta Ukraine ee ruqsad ay ku soo saarto gantaaladan ma aha go'aan oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaligiis qaadan karo, maadaama ay u baahan tahay ogolaansho adag oo ka yimaada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, hay'adaha maamula dhoofinta teknolojiyadda military iyo sidoo kale shirkadaha soo saara hubka oo ay ugu horeeyaan Lockheed Martin iyo suurtagal ahaan Boeing, kuwaasi oo mas-uul ka ah qaybo ka mid ah nidaamka gantaalka. caqabado kale oo la xiriira wax soo saarka hubka caalamiga ah oo xadida ayaa jira. Ukraine waxay u baahan tahay inay dhisto kaabayaal gaar ah oo loogu talagalay soo saarista gantaaladan, waana hanaan ay Jabaan ku qaadatay ku dhawaad 2 sano inay soo dhamaystirto xaalada nabadeed, halka Ukraine ay wajahayso dagaal furan iyo bartilmaameedyo joogto ah oo lagu hayo xarumaheeda warshadaha. taasina waxay ka dhigaysaa in soo saarista tiro badan oo muhiim ah ee gantaalada Patriot-ka ah aysan ahayn wax macquul ah mustaqbalka dhow, xitaa haddii ruqsadda isla markiiba la siiyo Ukraine. Iran waxay sidoo kale tilmaamtay in Kiev ay wajahdo caqabado kale, taasi oo wax soo saarka gantaaladan ee caalamka oo xadidan ah iyo jiritaanka liis dheer oo dalal sugaya inay helaan in soo saarista nidaamka loo ogolaado. taasi macnaheedu waa in dufcadda cusub ee gantaalada ay qaadan karto bilaa inay soo gaaraan Ukraine marka lagu daro caqabadaha dhinaca saadka iyo gaarsiinta ah ee jira. waxay carabka ku adkeysay in baahida Kiev aysan ku koobnayn oo kaliya gantaalada qabta kuwa kale ee weerarka, balse ay sidoo kale u baahan tahay nidaamyo Patriot oo dheeraad ah si loo ilaaliyo kaabayaasha muhiimka ah ee Ukraine. falanqeeyaha militariga ayaa sidoo kale waxay ka digtay
in hoos u dhaca sii socda ee heerarka lagu soo ridayo weerarada uu siinayo ruushka fursad lagu hirgeliyo waxa ay ku tilmaamtay istaraatiijiyadda weerarada silsiladaha ah taasi oo lagu beegsanayo xarumaha kaydka warshadaha goobaha muhiimka ah ee saadka iyo xarumaha taliska iyo maamulka. tani waxay horseedi kartaa in si tartiib loo wiiqo awoodaha difaaca ee Ukraine islamarkaana loo daciifiyo furimaha hore ee dagaalka awoodda ay ku leedahay sida ay sheegtay falanqeeye Meron. bilaha soo socda ayaa noqon kara kuwa go'aaminaya jihada dagaalkan uu qaadi doono maadaama sii yaraanshaha difaacyada cirka ee Ukraine marka loo eego taageerada reer galbeedka oo gaabis ah ay ku imaanayso ay wax ka bedeli karto isku dheelitirka awoodaha dagaalka dhulka. waxay sidoo kale ka dhigi kartaa kaabayaasha muhiimka ah ee Ukraine kuwa aad ugu nugul weerarada ruushka ka imaanaya xilli ay sii kordhiyaan su'aalaha ku saabsan awoodda Kiev ay ugu adkeysan karto dagaalka haddii heerka daalinta iyo luminta kheyraadka ee hadda jira uu sidani ku sii socdo. waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socota warbixin ku saabsan qorshayaasha Netanyahu uu diyaarinayo ee ka dhanka ah Iiraan iyo mowqifka Mareykanka ee saaxadda kala baxay Israa'iil. balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin ah. soo dhawaada mar kale daawadayaal, habeen wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan. wali waxaad daawanaysaan oo si toos ula socotaan barnaamijka maxaa cusub oo idinkaga imaanaya istuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadan waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. idinkoo warar degdeg ah, macluumaadyo kale iyo faallooyinka akhrisan kara oo ka heli kara boggaan internetka ku leenahay ee degdego weelkaaga wararka. hagaag aynu markan qoraansanno warbixinta ugu dambeysay ee barnaamijka caawa. Netanyahu ayaa la sheegay inuu diyaarinayo weliba si hoose u diyaarinayo qorshayaal lagu doonayo in lagu wiiqo nidaamka Iiraan ka taliya ama kaarmiya. mareegta warbaahineed ee diiradda saarta falanqaynta iyo siyaasadaha bariga dhexe Al-Monitor loo yaqaano ayaa soo xigatay ila amni oo Israa'iiliya kuwaasi oo sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu hay'adaha ammaanka ka codsaday inay diyaariyaan qorshayaal lagu wiiqayo laguna xasiloon dareynayo nidaamka Iiraan ka jira. mareegtu waxay sheegtay in jabka ka dhashay sugitaanka go'aanada Mareykanka ee ku saabsan Iiraan oo Netanyahu ku riixeen inuu dejiyo qorshayaal isagoo u gaar ah oo Israa'iil si gooni ah ay wadato hawsheeda. ilaha ayaa waxay intaasi ku dareen in warbixinada la xiriira dib u abaabulidda ciidamada iyo qalabka Mareykanka ee bariga dhexe ay ku adkeynayaan Israa'iil inay qiimeyso qorshayaasha istaraatiijiga ah ee Washington ka leedahay dagaalka, iyadoo qiimeynuhu ay muujinayaan in Mareykanku isku dayi doono inuu yareeyo joogitaankiisa militari ee gobolka isagoo weli ilaalinaya awoodda weerar oo muhiim ah ama inuu isku diyaarinayo heshiis gaar ah oo uu la galo Tehran. ilaha ammaanka Israa'iil ayaa sharaxay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan Tel Aviv siin iftiinka cagaaran waxa ay ugu yeereen oo ay ugu beeri karto ololaha Mareykanka ee ka dhanka ah Iiraan, iyadoo ay jirto mugdi ku saabsan qorshayaasha faahfaahsan ee Mareykanka ee gobolka. dhinaciisa wargeyska Israa'iil ka soo baxay duco saxamood iyo waxa uu sheegay in go'aanka hadda uu gacanta ugu jiro Washington islamarkaana mas'uul ka yahay maareynta arrintan, taasi oo keentay in doorka Israa'iil ee iska horimaadka Iiraan uu noqdo mid yaraada. maqnaashaha Israa'iil ee wareegii ugu dambeeyay ee dagaalka ma ahayn oo keliya go'aan madax bannaan oo ay qaadatay xukuumadda Netanyahu uu hogaamiyo, balse waxaa sidoo kale ku salaysnaa rabitaan Washington ay leedahay oo ahaa in Tel Aviv laga fogeeyo colaadda haddii ay Iiraan weerar toos ah ku qaadin iyada. xaaladan ayaa abuurtay xaalad cusub taasi oo ay Mareykanku hogaaminayo ololaha ka dhanka ah Iiraan, halka Israa'iilna ay feejignaan ku jirto oo ay dagaalka ku biirayso oo keliya marka Mareykanku uu ka codsado inay ka mid noqoto dagaalka ama haddii Tehran ay bixiso sabab toos ah oo taasi keenta. sida uu sheegay wargeyska Israa'iiliga ah ee dacwad taxriimood militariga Israa'iil ayaa waxa uu isku arkay inuu ku qasban yahay inuu dib u habeeyo heerarka heeganka mayleynta ciidamada iyo sidoo kale qoondeynta qalabka militari loo baahan yahay, iyadoo lagu saleynayo isbedelada ku yimaada mowqifyada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. inkastoo Tel Aviv ay qatarta Iiraan u aragto qatar weyn oo jiritaankeeda halis gelinaya, iyagoo ka fiirsanaya sida Washington arrintan u maareynayso. kadib digniin isdaba joog ah oo ku saabsan weeraro culus oo lagu qaadayo Iiraan, madaxweynaha Mareykanka ayaa maalmo kahor waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanka iyo Israa'iil ay ku heshiiyeen inay hakad geliyaan weeraradii loo qorsheeyay in Tehran lagu qaado, taasi oo ku timid sida uu sheegay codsi Iiraan ka yimid iyo dalal kale oo gobolka ah, iyadoo shardi laga dhigay in heshiis si degdeg ah loo gaaro.
waxaana qoraal uu ku daabacay bartiisa gaarka ah Trump uu ku sheegay in Maraykanku uu diyaar u yahay inuu ku dhufto Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan xirar argagax iyo awood milatari oo aan horey loo arag tan dagaalkii labaad ee adduunka haddii rabitaankiisa aysan hirgelin kadibna waxa uu xaqiijiyey waqtigaasi inuu ogolaaday in weerarka la hakiyo isagoo carabka ku adkeeyay in Israa'iil ay ka go'an tahay in la baajiyo weerarka lagu qaadayo Iiraan oo ay diyaar u tahay iyadoo haddii heshiis lala gaarayo Teheraan weliba si degdeg ah loola gaarayo waa hagaag daawadayaal bixintaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkii maxaa cusub oo si toos aad uga daawanayseen EGBN Online TV si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama waadan hore uga xidhnanina nagu soo biira taliinta muddo ugu kulmi doono barnaamij midkan lacayna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo